kooxda al-shabaab markii dagaalada lagu jabiyay lagana cunaqabateeyay raashinkii iyo shidaalkii deegaano ka tirsan gobolada Mudug iyo Galgaduud uga gudbayay oo sida dhuumaaleysiga ay ku gudbiyaan waxa ay hadda bilaabeen in beelaha Soomaaliyeed ay iska hor keenaan qaab qabiil iyagoo u adeegsanaya maleeshiyaadkooda qaar ka mid ah ayay u egmadeen in ay fuliyaan dhacdooyin iyo weeraro ay ka dhex geysanayaan bulshada Soomaaliyeed muuqaalkan waxaan rabaa inaan kuugu soo gudbiyo xogtaas oo dhameystiran iyo falalkii ugu dambeeyay oo ay ka geysteen qaybo badan oo kamid ah gobolka Galgaduud kooxda khawaarijta ah ee al-shabaab arrintaasina waxa ay tahay in ay fidno ka dhex abuuraan bulshooyinka Soomaaliyeed ee deegaanadaasi ku sugan muuqaalkan sii sheer garay la wadaag saaxiibada Facebook kugu wehelinaya si xogtani u gaarto dadka Soomaaliyeed sidoo kale page-kan soo follow garay kana mid noqo saaxiibada ku xiran channel-keena YouTube-kana subscribe soo saar muuqaaladana si toos ah ayaad hadda kadib uga dheehan doontaan sida page-ka aan u soo galino oo kale nagu taageera in muuqaaladeenu meel dheer gaaraan annaguna waxa aan u taaganahay inaan xogaha idinka dahsoon iyo hadba xaaladdu sida ay tahay soo gudbino aan ku bilaabo maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ee khawaarijta ah arxanka daran waxa ay hadda deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ka bilaabeen dadkii shacabka ahaa inay iska hor keenaan taasi waxa ay ka dambeysay markii toddobaadyadii la soo dhaafay laga hakiyay ilaa dhowr safar oo ay doonayeen in raashin iyo saanad hub iyo shidaal isugu jirta ay ku gudubsadaan deegaanadaasi qaarkood gacanta lagu soo dhigay dhowr maalmood ka hor kuwii ugu dambeeyay ciidamada deegaanka iyo maamulka degmada Gadoon ee gobolka Galgaduud gacanta ay ku soo dhigeen ayna ku soo bandhigeen gudaha degmada Gadoon kadib markii khawaarijta gacanta looga soo dhigay meel kamid ah gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Dawacoole oo kamid ah gobolka Galgaduud kooxda al-shabaab intaasi kuma aysan akaysan waxa ay sameeyeen falal lid ku ah amniga iyadoo ay shacabkii iska hor keenayaan ku nool deegaanadaasi gaar ahaan beelaha Ceyr iyo Duduble ay hadda ka dhex faa'iideysanayaan dil ayaa dhacay maalinimadii shalay ahayd ka dhacay agagaarka deegaanka Orshe oo ka tirsan isla gobolka Galgaduud dhanka waqooyina ka xiga isla deegaanka Beeraxaadle oo ah deegaanada ka tirsan gobolka Galgaduud falkaasi waxaa dadka deegaanka inoo sheegeen in lagu tuhmayo in ay geysteen maleeshiyaad ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab kuwaas oo isi soo ekaysiinaya dadka deegaanka amaba beesha Duduble waxaa ninkaasi ka dhintay sida xogta aynu ku helnay beesha Ceyr waxa ayna uga gol leeyihiin labada beelood in isku dhac halkaasi uu ka yimaado dagaalka qabiilkana uu ka soo cusboonaado deegaanadaasi si ay uga dhex faa'iideystaan iyagana ay waxyaabaha ay rabaan halkaasi uga fushadaan maadaama dagaalkii tooska lahaa ee ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay ku guul dareysteen lagana cunaqabateeyay lana go'doomiyay raashinkii iyo saadkii deegaanadaasi uga imaanayay kooxda al-shabaab toddobaadyadii la soo dhaafay ama bilihii aynu ka soo gudubnay waxaa lagu jabiyay oo khasaare badan lagu gaarsiiyay dagaalo ka dhacay deegaano ka tirsan iyo degmooyin gobolada Mudug iyo Galgaduud kuwaas oo furimo badan khawaarijta qasaarihii ugu badnaa lagu gaarsiiyay hadda iyaga khilaafyo badan ayaa ka dhex jira ilaa dhowr meelood horjoogayaashooda ayaa isku haya khilaafyadaasi iyo waxyaabaha isku hayaan waa u soo laaban doonaa muuqaalo kale ayaana ku soo gudbi doonaa waxaana ogsoonahay in dhowaan dagaal uu ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud oo qasaare badan iyaga dhexdooda ay isku gaarsiiyeen laakiin arintani waxa ay ka dhigan tahay ay hurinayaan dadka shacabka ah dhexdooda in ay dagaal qabiil ka dhex bilaabaan ama ay uga faa'iideystaan maadaama cunaqabatadaasi loo geystay dadka deegaanka waxaan ogsoonahay in ay qayb ka yihiin dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka al-shabaab isla markaana looga ciribtirayo meelaha ay kaga sugan yihiin bartamaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanadan Galmudug aragtidaada waa in la wadaagi kartaa sida aad u aragto kooxda al-shabaab hadda in ay bilaabeen hurinta colaadda beelaha gaar ahaan kuwa wadadega qaybo kamid ah gobolka Galgaduud qaybta faalada ama commentiga ayaad inagula wadaagi kartaa aragtida aad ka qabto iyo sida aad u aragto tallaabadaasi khawaarijtu deegaanadaasi ay ka qaadeen oo ah kuwa cusub oo hadda ay sameynayaan iyo dabka ay deegaanadaasi iyo dadka shacabka ah ka dhex hurinayaan waa ku mahadsantahay inaad halkan nala soo gaarto muuqaalkan sheer garay la wadaag saaxiibada Facebook iyo YouTube-ka kugu wehelinaya sidoo kale YouTube-keena soo subscribe garay kana mid noqo saaxiibada ku xiran page-kana soo follow garay si wararkeenu ay ku soo gaaraan waxyaabaha ka soo kordha arrintaasi iyo colaadda khawaarijtu deegaanada bari ee gobolka Galgaduud ay ka hurinayaan halkan ayaan kugu soo gudbi doonaa waxyaabaha ka soo kordha iyo hadba xaaladdu sida ay noqoto fariintan shacabka Soomaaliyeed gaarsiin oo la wadaag